السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa wax yar inaan falanqeeyo xaalka laascaana ka socda. Dhibta laascaana ka socota iyo waxay ka bilaabatay iyo in reer laascaano la tooganayo xasuuq lagu waday cidaan maaragtay xasuuq lagu waday waxaa ka dambeeyay musabbixaa ka dambeeyay dadka waxa tooganayo waa musabbix ciidankiisa waa cid kale ma sababta loo tooganayo waxa weeye dadka in la xasuuqo oo maaragtay dhulkan ay ka carara taas waa hubal wey qof kasta aqli la arki kara meeshan laascaano waxaa degan dad isku dad ah dhulbahantaa degan iyo dad kaloo yaro soo raaco dhex degan marka iyaga dhexdooda wax dhib oo dhex taala ma jirto dhulbaante dad ehela weeye marka bahdil badan baa dadkan lagu waday 15 sano ugu dambeysay dhibaatooyin badan bahdil iyadoon maaragtay xataa dadkii dhex degay loo diiday maaragtay inay sida reer koonfureedkii reer koonfur galbeed kale iyagoo magaalada iyagoo iskale magaaladoodii laga soo xaaqay dadkaas marka iyaga dhibaato loo geysanaya intaa bahdil aad u badan xukunkan Soomaaliland waxay ku qabeen ma jirto nafacaad waxaan dhibahayn kuma qabanin waxaas hadda ugu darayd musabbixi wuxuu fahmi waayay war hadda haddii dadkaan igu soo jeesteen oo ay go'aansadeen inay aysan qayb ka noqon maamulka Soomaaliland maamulka Hargeysa soo ma ahan inaan xal ka dejiyo oo ku dayo wanaag iyo sasab iyo waxa hadduu shaqayn waayeen faraha ka qaado taasay taladu ahayd taladaasi waa dhaaftay odagu cidna danka mal odagu waa wax weyn baa ka qaldan maskaxaantiisa aad buu u qaldan wax weyn baa ka qaldan kulay dagaal baan ku qabsanaya meeshaas aw dagaal oo dad baan baabiinaya waan qabsanaya yani tii hore baa waxaan ku darayaa mid kaloo xasuuq marka meeshii waxa suuq ka bilowday talo way ka fakatay waxay ahayd inaadan dadka Soomaaliyeed isku baabi'inin inaadan wiilasha Soomaaliyeed isku baabi'inin inaadan ummadda Soomaaliyeed cadow dhex dhigin cadowtinimo aad dhex dhiginin dad Soomaalidu waa walaalo waa ehel waa wili abtii waa isdhaleen dadku wiligood daris bay ahaanayaan dhibaato inaad dhex dhigtid oo uga tagtid dhibaato dhexdooda waa mid aad xun mid caaqib xun weeye